in kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay xoojinayso dalabka Iiraankaasi Jose Mourinho waxaana lagu tilmaamayaa in kooxda kubadda cagta Juventus ay tahay kooxda kaliya ee si weyn u horkacaysa dalabka Iiraankaasi toddobaadkii ugu dambeeyay ayaa laacibkani waxa aad u baaday goobaya Paris Saint-Germain Manchester City oo kooxda kubadda cagta ee Arsenal sheekada la yaabka leh ayaa ah kooxdan ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ee Juventus ayaa muhiimad gaar u arkaysa fursadda xidigani ka tirsan kooxda kubadda cagta Lyon maadaama laacibkani kooxda kubadda cagta Lyon lagu tirinayo ciyaartoyda waqtiga xaadirka ka soo dhaqaaqi kara kooxdani ka dhisan ligoonka wadankaasi Faransiiska ee Lyon ayaana markaa diyaar u ah in xidigani gacanteeda ay ka bixiyaan ayadoo kooxda Juventus ay tahay kooxda kaliya ee ugu dhow saxiixa Iiraankaasi Jose Mourinho waxaana lagu tilmaamayaa laacibkani inuu ka mid yahay xidigaha waqtiga xaadirka ugu hadalhaynta badan ee suuqa kaliibsiga xidigaha kooxaha kubadda cagta ee PSG Manchester City Arsenal ayaa ayana dhankooda ka cirsanaya dalabka Iiraankaasi Jose ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Lyon tobraha cusub ee kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus Andrea Pirlo ayaana markaa sheegay in xidigaasi uu markaa ka mid yahay liiska ciyaartoyda Juventus ee u qorshaysan xil ciyaareedkani inay markaa ku soo biiriyaan Turin 22 jirka kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ee Kai Havertz oo sheekooyinkiisa muddo bil ah aad u soo jiitamayay ku aadan inuu u dhaqaaqo gegida Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea maadaama maamulka kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ay gabi ahaanba sheegeen inaysan suurtagal noqon karin ciiraankani si fudud inuu kaga dhaqaaqo kooxda ayadoo Chelsea ay tahay kooxda ugu dhow ee markaa la hadalhayay inuu u dhaqaaqi doono garoonkeeda mar dhawaan yahay markii kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay soo bandhigtay dulcageed gaaraya 65 milyan oo lacagta Euro-ga oo sidoo kale lagu daray 15 milyan lacag gunooyina oo ay markaa ku doonayeen ciiraankaasi inay ku geeyaan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Premier League isbedel walba kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ayaa markaa sheegtay in ciiraankaasi Kai Havertz kaliya garoonka uu kaga dhaqaaqi karo dulcageed gaaraya 100 milyan oo lacagta Euro-ga tobraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard ayaana markaa sheegaya in kooxdiisa ay awood u leedahay inay xoojiso dalabka ciiraankaasi Kai Havertz waxaana uu ka mid yahay positionada waqtiga xaadirka uu Lampard uu doonayo inuu markaa ku dagaalgalo xil ciyaareedka cusub ee 2020-2021 horyaalka wadankaasi Ingiriiska waxaan jeclahay inaan soo gabagabeeyno qorshaha ciiraankaasi Kai Havertz ayadoo darbaxyo kulul ee kooxda kubadda cagta Chelsea maamulka Bayer Leverkusen markaa ay kala soo kulantay laakiin rajo iyo wali Chelsea ay leedahay inay markaa ka dhaadhiciyaan wajiga xiga xidigaasi kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ee Kai Havertz xidiga u dhashay wadankaasi Faransiiska Alessandro Lacazette ayaana markaa qarka u saaray inuu isaga soo dhaqaaqo Stade Emirates ee kooxda kubadda cagta Arsenal kadib markii tobraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta uu sheegay in muhiimadiisu ay tahay oo kaliya inay dhageysan doonaan dalabkan kooxda ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ee Bianconeri Juventus oo aad u xiiseynaysa ciiraankaasi reer France ee Alessandro Lacazette maamulka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ayaa xidig ka mid ah ciyaartoyda u soo bandhigtay kooxda Arsenal si uu qayb kaga noqdo heshiiska ay markaa ku doonayaan xidig reer France Alessandro Lacazette inay geeyaan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus waana rajada ugu weyn kooxda Juventus walow Arsenal ay doonaysa inay qiimo ka heshay markaa ciiraankaasi Alessandro Lacazette oo kaga dhaqaaqo Stade Emirates ee kooxda kubadda cagta Arsenal warbixintii ugu dambeysay Alessandro Lacazette ayaana markaa la soo xiganaya in kooxda kubadda cagta Juventus kalsooni weyn ay ku qabto inay ciyaartoydeeda mid kamid ah ay u soo bandhigto maadaama ay rajo weyn ay ka leeyihiin ciiraankaasi Alessandro Lacazette inuu noqdo wariyaankooda cusub xil ciyaareedka soo socda ee horyaalka dalkaasi Talyaaniga kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona Lionel Messi ayaana markaa lagu wadaa inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Barcelona warar xaqiiq leh oo laga helay gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaana markaa sheegaya inay xilligan ay iska fasaxi doonaan xidigaasi Lionel Messi Lionel Messi ayaa saddex option aad u muhiimsan ka haysta markii loo eego kooxaha ka dhisan tartamada qaaradaas Yurub sida Inter Milan Manchester City oo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain oo saddexda kooxood ee ugu hadalhaynta badan dalabka ciiraankaasi reer Argentine Lionel Messi Jose Maria oo ah hogaamiyaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaana markaa xusaya in ciiraankan Leo uu diidan yahay guud ahaanba inuu waqti la sii qaato kooxda kubadda cagta Barcelona xitaa Leo waxa uu diidan yahay inta ka harsan xil ciyaareedka soo socda wada hadalkiisa ama heshiiska kooxda kubadda cagta Barcelona inuu la sii joogo taasina markaa ay qasab ku tahay inay Barcelona gacantooda ka bixiyaan waxaana la xusayaa in kooxaha kubadda cagta Inter Milan Manchester City iyo Paris Saint-Germain mid ka mid ah ay ku guuleysan karto waqtigan haddii Leo uu isaga soo dhaqaaqo Stade Nou Camp ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona dhowr ciyaartoy
Leo hore ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa waday ololo ku aadan inay isku dayaan xidigaasi Leo inuu ku sii hakado kooxda kubadda cagta Barcelona balse waxa la macneenayaa inuusan xilligan jecleen wada shaqeynta madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona sidaas darteeda ciyaaraanka ayaa markaa doonaya inuu ka hobadisho mustaqbalka kooxda kubadda cagta Barcelona hadalhayntii ugu dambeysay ee warbaahinta wadankaas Isbaanishka ayaa ah in Leo markaa qarka u saaran yahay inuu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Barcelona laacibka qadka dhexe kooxda kubadda cagta Chelsea N'Golo Kante ayaa markaa gabi ahaanba xusay haddii uu isaga dhaqaaqo gegida Stamford Bridge inuusan ku sii nagaadi doonin kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska xidigan reer France N'Golo Kante ayaa dhawaan dalab ka soo gaaray kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Tottenham Hotspur laakiin wuxuu sheegay haddii uu gabi ahaanba isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Chelsea waxaan sidoo ugu dhaqsiyaha badan aan dib ugu laaban doonaa ligoonka wadankaasi Faransiiska N'Golo Kante sidoo kale waxa darbiyo muhiim uu ka haysta horyaalada Talyaaniga ee Isbaanishka Kante ayaa markaa kamid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan ee ku sugan gegida Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea haddaba waxa la xusay in Chelsea ay xilligan qoondeynayso inay ciyaaraankaasi lacag kaash ay markaa ku helaan ayadoo hore loogu soo bandhigay kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus inay xidigaasi N'Golo Kante ba ay la wareegi karaan haddii laacibkani muddada aad ku faraha badan ee kooxda kubadda cagta Chelsea baadi goobaysay Kai Havertz uu yimaado gegida Stamford Bridge waxa halkaasi Chelsea ay ku lumin doontaa xidig reer France N'Golo Kante oo asna markaa xidig uu aad u xiiseeyo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Chris Leguanka horyaalka wadankaasi Faransiiska laacibka kooxda kubadda cagta Wolves Raúl Jiménez ayaana ka mid noqonaya xidigaha ugu hadalhaynta badan xilli ciyaareedkani suuqa kaliibsiga waxaana kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay sidoo kale ka bitaa kooxaha sida weyn u baadi goobaya ciyaaraankaasi Raúl Jiménez shakala yaab leh ayaa soo ifbaxday kadib markii dhowr kooxood ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub ayana ay ku dhawaaqeen inay muhiimad gaar u arkaan in ciyaaraankaasi Kai Havertz ba ay gacanta ay ku soo dhigi doonaan natiijo walba maamulka kooxda kubadda cagta Wolves ayaana markaa xusay inaysan si fudud gacantooda kaga bixin doonaan xidigaasi Raúl Jiménez waxaanu ka mid yahay waryahanada waqtiga kan xaadirka loogu hadalhaynta badan yahay toddobaadkii ugu dambeeyay kooxdan reer Talyaani ee Juventus ayaa hamigeeda ahaa inay ka dhaadhiciyaan wakiilka ciyaaraankaasi inuu aqbalo u soo dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus sidoo kale waxa ku guuldareyseen dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska Jiménez waxa la filayaa inuu shakhsiyan ba aad u xiiseenayo inuu la sii joogo kooxda kubadda cagta Wolves xil ciyaareedka soo socda balse ololo ay xilligan bilaabeen kooxda kubadda cagta Juventus ayaana markaa loo maleynayaa in ciyaaraanka markaa la xoojinayo dalabkiisa loona baahan yahay in si ugu dhaqsiyaha badan uu ugu dhaqaaqo horyaalka dalkaasi Talyaaniga tababaraha kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus Andrea Pirlo ayaana markaa shaabada saaray in xidigaasi Raúl Jiménez uu kamid yahay labada weeryahan oo si weyn kaga baadi goobaya suuqa kaliibsiga mid kamid ah inuu yahay waxaana la rajeynayaa Juventus isbuuca soo socda inay soo gabagabeyn doonto dalabka ciyaaraankaasi tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona ee Koeman ayaana markaa rajo weyn ka leh in labada ciyaaryahan ee Wijnaldum iyo Memphis Depay ay imaan doonaan Stadio Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona sida markaa qorshaha uu yahay Ronald Koeman ayaana markaa sheegaya in fursad weyn u tahay kooxda kubadda cagta Barcelona inay la saxiixan karto labadaasi ciyaartooy xidigahani ayaana kamid ah hogaamiyaasha labada kooxood ee Liverpool iyo Lyon waxaana uu ku tilmaamayaa inay yihiin xidigo wax weyn ku soo kordhin kara mustaqbalka kooxda kubadda cagta Barcelona natiijo walba waxaan kalsooni weyn ku qabaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan ugu dhaqaaqi doono labadaasi dalaba waxaana uu sheegay in labada ciyaartooy ba positionada ay ka ciyaarayaan in waqtiga kan xaadirka ay markaa ugu baahan tahay kooxda kubadda cagta Barcelona waxaan ku dadaali doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan ba inaan soo gabagabeyn doono qorshaha ciyaartooydaasi sidaasi waxaa kalsooni ku qaba tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona Ronald Koeman dhinaca kale tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona Ronald Koeman ayaa markaa doortay tababarihiisa ku xigeenka u noqon lahaa xil ciyaareedka cusub ee horyaalka liigaha wadankaasi Isbaanishka waxaana uu xushay xidiga hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona Larson oo markaa lagu tilmaamayo inuu kamid yahay xidigaha ugu muhiimsan ee soo maray kooxda kubadda cagta ee Barcelona Larson oo ah waryahan u dhashay wadankaasi Sweden ayaana markaa waqti wacan ku qaatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona intii u dhaxeysay sanadii 2004 ilaa 2006 waxaana uu suurtageliyay 19 gool 59 kulan oo u saftay kooxda kubadda cagta Barcelona Larson ayaa hadda loo doortay caawiyaha tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ronald Koeman xidigan ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona ay ku xasuusanayaan taariikhda muhiimka ah uu ka soo qaatay kooxda Barcelona sanadihii 2004 ilaa 2006 waxaana uu qayb weyn uu ka ahaa finalkii 2006 tartanka Champions League oo